madaxweynaha dowladda Puntland oo uu helinayo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya oo Puntland ku jooga safar shaqo ayaa booqasho isugu jirta salaan sharaf hambalyeyn iyo u kurgalida xaaladda caafimaad waxa ay ugu tageen halyeeyadii ku dhaawacmay dagaalkii lagula jiray kooxda argagixisada ee Al-Shabaab bartamihii bishan oo xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo cisbitaalka guud ee Garowe inkasta oo jirkooda uu ka muuqday dhaawacyada ka soo gaaray dagaalka haddana waxa wajiyadooda ka muuqanaysa inay ku qanacsan yihiin waxa ku soo gaaray gudashada waajibaadka qaran iyo difaaca ummadooda madaxda ayaa warbixinta xaaladda caafimaad ee mujaahidiinta ku dhaawacantay dagaalka lagu sifaynayay burcadiimeedka Al-Shabaab waxay ka dhageysteen dhaqaatiirta gacanta ku haysay daryeelkooda madaxweyne Gaas ayaa amray in si degdeg ah ay dhaqaatiirta caafimaadku ugu soo gudbiyaan wasaaradda caafimaadka warbixinta xaaladda qaar ka mid ah dhaawacyada mujaahidiinta oo madaxweynuhu sheegay in xukuumaddu ay u dhabagelayso sidii dalka dibaddiisa loogu qaadi lahaa sifo loo daryeelo caafimaadkooda ra'iisul wasaare Sharmaarke ayaa dhankiisa xusay in dowladda federaalku ay kaalin ka qaadan doonto sidii bukaanku uu heli lahaa daryeel caafimaad oo degdeg ah Cabdiqani Bardacad Puntland TV Garowe